بسم الله الرحمن الرحيم waxaa moodaa bariyahan dambe inay soo badatay nimanka Soomaaliyeed romantic ma ahaan nimanka Soomaaliyeed sida laga filaayay marka intaan guursan ka hor san ka filaayay ma noqonin nimanka Soomaaliyeed si ajaanibta ay dumarkooda oo la dhaqmaan oo lama dhaqmaan okay waa gartay taas waa nimanka Soomaaliyeed waraabo dumarka Soomaaliyeed ayaga wali ma isweydiiyay maxaa la dhahaa mis romantic dumarka xaq uma laha inay sameeyaan oo ninkooda ay romantic u noqdaan oo rag bas ayaa laga rabaa inay romantic noqdaan dumarka Soomaaliyeed waxa moodaa marka hore la shaqansanayo gabarba gabadhi ka qurux badan tahay oo eg tahay si uu labisanayso kaala iskaar markii banaanada marayso markii la arooso way isdhiganaysaa sida uu labisan jirto ama labisanayso ninkeeda waxay ku qaabilaysaa diracay maanta oo jikada kula jirtay waxa laga yaabaa qaarkood inay xataa ay caylaan markay ilmaha dhalaan oo jirkooda iyo aysan maxaa la dhahaa ka taxadirin qos wax iska dhacaysaa ninkayga waay maxaa iska qurxinaysaa ilaahay waasoo ku sameeyay waa ninka khalaas uu ku yaqaan qofka tahay laakiin qofku isku qurxi lagu yiri waa ninka qof ajnabi lagu ma dhihin isku qurxi xafladda marka aas isku qurxi lagu ma dhihin laakiin waxa lagu dhahay markuu ninka ku imaana isku qurxi ninka ka isku qurxinin oo na qurux badan oo diyaarsan oo u imaaneen ha kama romantic u noqonaya markuu imaado halkan dirac ka jeexay imaana ilmihi buuqayo imaanaya waxa ku dhacay madaxna oo iska saxanaya waxa laga yaabaa inuu san hatta sida awal aha oo san ka sii daro soo abay marka ninka ku imaado hadaarta ninka inuu romantic noqdo horta ninka uu naga duwan yahay anaga waxyaalaha anaga u jeedno oo noo muuqdo islanahay waa noo muhiim asaga muhiim uma aha like sida inuu banaanka ku kaxeeyo inuu ku dhaco casho banaanka ka soconayna inuu meel casho qurux badan oo kana leedina oo ku wado inuu flower ku keeno waxaas waxa la tahay waxa macna lahayn aday kala qurux badan tahay marka si ninka waxa aragtay oo kugu sameeyo waa in adiga isbedeshaa waa in marka hore adiga aad tustaa xushmad waa in aad tustaa jacayl waa in marka imaado adiga qurux badan oo soocan u labistay ilmihi oo diyaarsan guriga diyaarsan aqaabisha sidoo kale cashooyinka hore ka duwan oo adiga asaga kaliya ilmaha inta iska saxayso oo qurux badan u samee tomorrow markuu arko isbedelka adiga ugu dhacay uu isgaranayaa asagana waxa laga yaabaa isbedel uu bilaabaya inuu waxyaalaha u baahantay muhiimka inay xiriirkaaga ay muhiim u yihiin oo fahmaya soo bari asaga automatically waxa arkaysaa isagoo isbedelay marka ha ku fiirineen jacaylka ninka kaliya asaga bisa ku eedaynin guriga laba dhinac ku dhisan yahay isku day inaad dhinacaaga ka qayb qaadatid ee aadan asaga kaliya aadan saarin hawsha sidoo kale ninkaaga inaad banaanada ka dhahdin nimanka Soomaaliyeed romantic maaha inaad tifiyada aan ka dhahno nimanka Soomaaliyeed romantic maaha nin ajnabi aan guursanaya wax fool xun way ninkii ma bedelayso wax isbedel ma soo kordhinayso ina ninkaaga meelahan ka dhahno nimankeena ma after all waa nimankeena aabayaashan saan ma ahayn shalayto qof dhahay aabahay romantic ma aha naguma jiro sidoo kale ninkaaga adiga example u noqo adiga isbedel qof bil aadan waaye waxa laga yaabaa inuu asaga u arkin inay muhiim yihiin ama ay u muuqanin adiga u noqo role model adiga samee marka hore isku day laakiin inaad dhahdid social media waxaan ku faafinaa ninkii romantic ma aha nimanka Soomaaliyeed romantic ma waxay bedelaysaa ma lahan asaga inuu romantic iska ma dhigi karo wixii ma fahansana hadal aad dhahdina ma bedelayo soo adiga role model noqo adiga samee marka wixii u samee isbedel samee dan asaga wixii isbedelaya sidoo kale nimanka dumarku ka duwan yihiin ilaahay maxaa la dhaasoo ku abuuro ma abuurin emotional ka buuxo sida adiga u sameysanta uma sameysna waxyaalo muhiim ah ay u baahan yihiin adiga fahmeenin soo maxay ka dhimaysaa inaad xaaskaaga marka shaqada ka imaatid flower u keentid marka shaqada ka imaatid ama kale ama usoo hadiyad u keentid maxay ka dhimaysaa gurigaaga umba farxad soo kordhinaysa isku day inaad fahamtid xaaskaaga isku day relationship-kaaga soo qurux u noqday gurigaaga u dhismo ina mar aad joogtid oo kale banaanka casho u wadid aan ka nasana maanta guriga cashadiisii aan hawo soo qaadan labadana kaliya isku day gurigaaga inaad u shaqeeyo oo si farxad leh oo ku dhaqmo ma ku mahadsantiin daawashada